بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله maanta way bisha December tahay 4 xarunta dawladda Jubbaland waxaan kaga hadlayaa dhowr qodob arrimaha amniga siyaasadda iyo bulsho deegaanada Jubbaland iyo xaaladaha socda Jubbaland waa dawlad xubin ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya waa dawlad ku dhisan heshiiskii bulsho hada qarameedkii uu qorayay la go'aamiyay 2002 ilaa 2004 dhismihii dawladnimada Soomaaliya dastuurkaas hada qarameedkaas oo isu bedelay dastuurka qabyada ah oo maanta Soomaaliya ay ku dhisan tahay dawladnimadeeda kaas oo nafarayo in laba gobol inta ka badan bay noqoto dawlad xubin ka ah dawladda federaalka taas oo lagu heshiiyay ummadda Soomaaliyeed kana dhaqan gashay Soomaaliya ilaa xilligaas geedi socodka waxaan aniga nasiib ahaa inaan qayb ka ahaa xaalad kasta oo Soomaaliya dib u soo dhiskeeda iyo marxalad kasta oo ay marisay state-kan waxaa dhawaan la dhaariyay November baarlamaankii saddexaad oo uu yeesho taa macnaheedu waxaa weeyaan 3 teeram in dawladnimada state-ka Jubbaland iyo hay'adaheeda dawliga ah ay howlgalayeen taas oo ku dhisan sidoo farayo dastuurka federaalka Soomaaliya iyo dastuurka u goonida ah oo intaba xeer ay ummadda ku heshiisay waa jirtaa in mar badan laga fikiro in Soomaaliya laga qabto doorashooyin qof iyo cod iyo xisbiyo laakiin marxaladaha dalka uu ku jiro xagga amniga iyo xagga shuruudihii looga baahnaa in qof iyo cod la gaaro sida tirada dadka heer deegaan heer gobol iyo heer state iyo heer national ahba oo heer qaran ahba oo aan la gaarin amnigii oon la horumarinin mar walba iyadoo uu nafarayo dastuurkeedna markii la gaari waayo haddana waxaa la galaa doorashooyin dadban oo qoriiso dhiib ah oo maalinba maalinta ka dambeysa lagu sii dhawaanayo dhismaha qarannimada Soomaaliya marka annaga waajibaadkayaga aan u xil saaranahay nolol doortay waa ilaalinta hay'adaha dawliga ah ee Jubbaland iyo wada shaqeynta dawladda federaalka Soomaaliya marka mar haddii xilligii hay'adaha dastuuriga Jubbaland uu dhamaaday lana gaari waa qof iyo cod waxaa qasab nagu noqotay inaan doorashadii dadbaneed qabanno oo baarlamaankii saddexaad oo Jubbaland u dhismo oo ay dhisaan odayaasha dhaqanka Jubbaland oo sax ah oo baarlamaanka koowaad iyo baarlamaankii labaad ba dhisay marka waxaa loo qorshaysan teeramka soo socdo inaan gaarno qof iyo cod dawladda federaalka Soomaaliya maadaama hadda iyaga waqti ay hayaan haddaan kala shaqeyn karno oo la gaari karo qof iyo cod inaan kala shaqeyno ma jiraan wax khaldan annagana xilligii qoriiso dhiibka aanu gaari karno qof iyo cod inaan deegaankan ka qabanno ongolayaashii deegaanka qof iyo cod iyo xisbiyo ku soo dhisno oo kuwii baarlamaanka ku dhisno waanu gaaraynaa laakiin haddaanu gaari weynin waxaanu ka cararaynaa inuu dhaco firaaq dastuuri ah halkaasna ay hay'adaha cardunka ah oo dastuuriga ah ay meesha ka baxaan mana jira xeer ama sharci kaloo noo ogolaanayo inaan waqtiga sii dheeraysano hoggaanka dawladda Soomaaliya oo ayagana muddo dheer dadana saaxiibo ahayna waxaanu offer gareynay ama aan ugu yaboohnay maadaama ayaga waqti haystaan inaan ayaga kala shaqeyno bal tan heerka qaran in la isku dayo qof iyo cod inay gaarto kadibna anaanu taariikhda dambe qabanno ayadoo intaa jirto rabitaanka shakhsiyadda iyo rag shax sameeyay istusay qaab ay ku sii joogi karaan kursiga
maaha inay ummadda Soomaaliyeed jahawareeriyaan taa beddelkeeda waxay ku tilaabo qaadeen inay duulaan ciidan isku dayaan inay ku beddelaan state-ka dastuuriga oo halkan ka jira ciidamadii la geeyey Kamboni ra'iisul wasaare Xamse anoo ixtiraamaya waxaan aad ugu xumaaday qaabka uu fasiray arrintaas waxaan waa taariikh waa wax la wada arkayo waa wax la wada og yahay waa arrin cad ujeedada aad ka leedihiin ciidankaas oo ah hay'adaha dastuuriga Jubbaland heer deegaan heer degmo heer gobol iyo heer state-ba inaad ku cinqalaabtaan maxaa yeelay ciidamada ADMAS waxay deganaayeen deegaanada waxay ka baxeen Buurgaabo Kudaa Cabdilla Biroole Gariley Ceelwaaq Kismaayo intaba waxaa beddelayay ciidanka dastuurka ku dhisan oo dowladda Jubbaland oo daraawiishta markii aanu xal ka weynay oo ciidamada xoogga dalka ay la soo gaari waayeen waa la beddelay waa lala kala wareegay xarihii waa laga beddelay ciidanka daraawiishta Jubbaland baa beddelay Kamboni weligeed ba ciidan ADMAS base kuma yeelan taariikh ahaanba laakiin ciidamada daraawiishta Jubbaland baa ka howlgelayay oo mar walba ammaankeeda hayay dhowr iyo 10 sano la soo dhaaf Kudaa iyo Buurgaaba iyo Cabdilla Biroole meelihii aanu xoogga dalka kaalmada kaga ribnay iyo Kismaayo iyo Ceelwaaq iyo Garileyna waxba nagalama qaban markii aanu niri bal guuta nagu soo xoojiyay arrimaha Ceelwaaq iyo waad ogtihiin cidda aad noo soo dirteen ciidan aan tababarnayn tashbiilikiisa fiicnayn weliba annaga nagu qasabteen inaan kharash garayno deegaankeena dib iyo fawdo ku soo kordhiyey shacabkii hantidooda balaqaystay maxkamadihii ay u diyaarsan yihiin oo aad tiraahdeen maxkamadda ciidamada qalabka sida ma gaari karta tii ciidamada qalabka sida Jubbaland ha lagu sameeyo baad ogtiin inaan la tacaalayno ciidamada Turkiga uu naga kaalmeeyo oo diyaaradaha degdega aad ugu daabusheen ujeedada aad ka leedihiin waa ujeedo guracan ummadda Soomaaliyeed arkayso caalamka arkayo waxaan idinkaga digaynaa wiilasha Soomaaliyeed oo waajibaadkooda iyo wixii loo dhaariyay ay tahay inay qarankooda difaacaan in shacabkoodii iyo dowladdoodii iyo qarankoodii ilaalinayaan aan ku soo celinin inay la dagaalamaan ayagana ay ku waxyeeloobaan taasoo nasiib darro ah waajibaad la qalluuci ah adinkuna taariikhda idin gelayso Soomaaliyana dib u dhac ku sameynayso arrinta ciidanka haddaan intaa ka idhaahdo markaan taariikhda dib u fiirino sidaan si la mid ah dowladdii madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo deegaana xur ah 11 sano ka hor shabaabka laga xoreeyey yaa ciidamo ku daabushay ayadoo beebeeyagiis wax walba samaysay ku burburisay ciidanka dastuuriga ahaa oo deegaanka ka howlgelaya Jubbaland siday ula dhaqantaad ogtihiin maxay soo kordhiyeen ayagoo maalin kali ah amnigan wax ka qaban oo deegaan shabaab haysta ka xoreyn baad haddana dib u daabusheen oo deegaankay joogaan ka qaadeen oo aan xasuusanaa 1 milyan oo dollar ku dhawaad dib ugu daabusheen inaad Muqdisho ugu celisaan waxaa la yaab leh inaad awood u heshaan oo dhaqaalihii ummaddu adeegsataan ciidamada adanaha siyaasadeed ka leedihiin qaybta 43 oo annaga nala howlgasho waa markhaati maanta taliyayaashu waa joogaan waa la weydiin karaa markay kartoon risaasa xamar ugu baahdaan waxaad tidhaahdaan maamulka dowladda Jubbaland idiin soo qaado annaga ma hayno transport aan ku siin kuwa geedaanna qaadno kuwa halkaan annaga soo qaadno 1 shilin oo bajad ah oo lagu gaarsiiyo risaasta ciidanka ma samaysaan hubka cadowgooda haysta hub u dhikama ma siisaan laakiin markaad danaha siyaasadeed iyo ciidamada sida khaldan aad u adeegsanaysaan haddii waad arkaysaan kharash aad gelinaysaan iyo awoodda aad leedihiin iyo sida aad u daabulaysaan kuwii gadaad shalay ayagoo cadowgoodii ceel cadda fadhiyo oo meel walba fadhiyo $1 milyan dib ugu celiseen
وديجانك كعلسين وولي بقرامة اللي قاعدة ترهدين قرام كي بعد يرد كوب قابنه خرج هالجليو هلا بلاري isla wadada iyada ahayd haddana maanta Kamboni ciidan ugu dejisay oo garoon kasta oo Jubbaland ku yeelay baad leedahay waxaan ka dejinaynaa ciidan si aanu nidaamkan ummadda reer Jubbaland ay ilaashanayso aad meesha ugu saartaan waxaan waa taariikh reer Jubbaland way isdifaacayaan waad aragteen taageerada shacabka waad aragteen odayaasha dhaqanka oo rasmiga ah oo Jubbaland ka jooga arrinta dib ugu baxa wada hadal aada aan wada hadalno miiskaas aan ku garanno haddana annaga waa khaldannahay oo wax xeerka dalka iyo sharciga dalka uusan noo banaynayn in aan samayno soo bandhiga ka daaya ciidanka waa digniin ciidanka Soomaaliyeed baa ku burburayo qarannimada Soomaaliya meesha ka baxayso civil war iyo maxay ahayd waxay isu bedeli doontaa wiji kale cadawga kaliya oo leenahay baa horumar ka helayo oo ka faa'iideysanayo ka daaya arrimaha ciidanku waa intaas arrimaha kale dalkan wuxuu leeyahay xeerarkan hadda ka soo sheekeynayay laba heer state heer federaal iyo heerka dawladda dhexe waajibaadyadan kala leenahay sharcigaas qeexaya xeerarka u kala degsan oo nin walba ku dhaqay kaas qeexaya halaalina heshiiska bulsho iyo xeerka dalka iyo dastuurka waa sax dastuurka in la qabyo tiro laakiin wadadee loo mariyaa wada ogol wada tashi ilaa waa qodobna wada qabanayo oo dhammaantana life document oo la rabo inaan dhaxal ka tagnaa annagana aan ku wada joogno ha loo dhammaado ha laga wada hadlo mid ha loo fiiriyo aanu ka heshiinno qaabka loo qabyo tiray dastuurka aanu ka heshiinno dadka wax wada leh ha ka heshiiyaan ha laga wada hadlo wada tashi ha la geliyo ilaa bulshada rayidka ha la gaarsiiyo markaas waa dukumenti nool oo annagana aan ku wada joogi karno dhaxalna aan ugu tegi karno ummaddeennii oy ku sii socon karto laakiin sidaan rabaan yeelayaa waa qofna uma joojinayo sax maaha waa aragti aad iyo aad u liidato qodobka kale aan rabo inaan ka hadlo waxaa weeyaan waa media waayadan dambe madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamed Siid anay khusaysaa madaxweyne Axmed bay hayaan dawladdii buu la hadlayaa inta waxaynaya anigu taariikh dheer oo siyaasadeed baan leeyahay mabda aan leeyahay weligii ma khaldamin waxa aanu ku tashanno oo ila quman oo ummadda markaas aan hormuudku ay danteeda ku jirto baan aniga maraa lacagna ma joogo alaab ma ahay qofna rabitaankii kuma raacayo maxaa dalkan xeerarkiisu yahay maxaa dawladnimada Soomaaliya dan u ah labada heer dawladeedba say ku socon karaan anigu aragtidayda taa weeye anigu aragtidayda waxaa weeyaan reer Jubbaland in xeerka iyo wada midnimadooda iyo wada tashigooda iyo calaamadooda iyo maaragtay baarlamaankooda iyo dadnimadooda ay ku wada noolaadaan bay danteedu ku jirtaa midaan u taaganahayna taa weeye markaan dhinac walba ka eegnay waxaanu go'aaminay intii firaaq dastuuri dhici lahaa inaanu tan qabanno taariikhka dambana aanu cid ilaahay u qadiro ay ka shaqeyso qof iyo codsi loo keeni lahaa federaalkana time bay haystaan ayagana aan kala shaqeyno dhamaystirka dastuurka oo loo dhan yahay iyo qof iyo cod sida loo gaari lahaa wadaas weeyaan wadada aanu joogno oo nahayno marar badan qaar baa waxay yiraahdeen madaxweyne Axmed Xasan Islaan iyo meesha waa lagu raagay waa taariikhkii saddexaad weeye maxaa diiday hadday reer Jubbaland u arkaan Axmed Xasan Islaan inuu taariikhkan u sii hogaamiyo oo meesha laga soo bilaabay meesha la maray markay qiimeeyeen ay yiraahdeen bal 5 sanana taariikhkan Axmed aan ugu darno maxaa diiday soo inaad hareeraha eegtaan ma dawladaha adduunka iyo ummadooda ayaga talado iska leh
qofku muxuu jooga lama yidhahdaa muxuu qabtay baa la yidhahdaa reer jubbaland ayagaa go-aankooda leh bahyo boqor waa la tashaday waxaa la yidhi okay termkan ha la tartamo doorasho furan aan qabanno annaga aanu taageerno madaxweyne axmed maxamed islaan inuu sii socdo mucaaradka ajandadoodaa soo bandhigeeno ha tartameeno guddiga doorashada madaxa bannaan ha ka qateen shahaadooyinka 75 xubnood oo baarlamaanka reer jubbaland matalaya ha lagu tartamo cid ilaahay ku guuleeyo oo cod ka hesho ha lagu wareejiyo maxaa khaldan marka mucaaradkii inna shuruucdii bay mareen oo shahaadooyinkoodu ay qateen oo waa tartameen oo codad bay heleen oo qaarna way tanasuleen inna ayagoo nidaamkii bannaanka ka ah bay isku dayeen inay wax kaloo khaldan iyo carqaladay iyo mushkilado kala sameeyaan taasoo dowladnimada ka baxsan dowladda federaalka soomaaliya maanta nidaam bay doorashada ku imaanaysaa guddi baa qaban doona madax bannaan haddii qolo kale tidhahda annagana baaral bolosisan samaysanayno guddi kalaan samaysanaynaayo uma hoggaansamayno guddigan iyo xeerarkii dastuurka ku dhisan yahay ma dowladnimaa walaalayaalow weli dabaqabashay leedahay xaaladda wax baa khaldan dib ugu joogsado caqliga ha shaqeeyo akhriya xeerarka dalku degsan rabitaankiina danta guud ka hormariya aan wada hadalno wixii naga khaldan waxaan isla fahmi laanahay miiska wada hadalka aan ku dhammayno ka daaya ciidamada iyo wiilasha Soomaaliyeed oo lisoo adeegsanayo ka daaya waxa cadowgeena ka faa'iidayo annaga dan inoogu jirin ka daaya ugu dambeyntii waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka hoggaanka dowladda federaalka golayaasheeda kala gedisan beesha caalamka oo geedda socodka dib u dhiska Soomaaliya naga kaalmayso dowladaha aanu deriska nahay oo waqti badan geliyey dib u dhiska Soomaaliya hadday Soomaaliya qasiyo fawdo ka jirtana ayagana dhibkooda ku jiro ciidanka la keenay oo waajibaadkiisa qaran laga soo leexiyey eheladii wiilashaa dhashay dhammaan in loo guntado in la badbaadiyo dhiig Soomaaliyeed oo si khaldan u daato in la badbaadiyo xeerarka dalka oo la afduubayo in la badbaadiyo heshiiska bulshoon wada leenahay in la dhiirigeliyo wada hadalka iyo Soomaaliya si ay ku wada joogi lahayd horena ugu socon lahayd cid walba kaalinteeda inay ka qaadato annaga haddaanu nahay hogaamiyaashii Jubbaland waxaanu diyaar u nahay wax walba wada hadal in lagu fuliyo waana halka aynu dhaafi doonin markuu khasaaraha bato waqti naga lumo intaan wada hadal u noqon lahayn maanta dabaqabashay leedahay wax baa khaldamay wax baa khaldan tilaabooyin khaldan baa qaadeen dib ugu noqdo aan wada hadalno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu